بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحابتا channelkeyga ku xiran waa markale walaashin saara channel iyo muuqaal cusub waa la kala mashquulo baryahan cafwan waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaalkan quruxda badan la maasha Allah waa kafe ama qaxwo ama bun qof walba siduu u yaqaano qaabkaas ayuu ugu dambeyn ku soo baxay waxaan rajeynayaa inaad ka wada heli doontaan insha Allah waxyaabihii aan ka diyaariyay iyo qaabkii aan u diyaariyay ka faa'iideysi wanaagsan saxaabay sidaa wada arkaysaa haddana waxaan dabka soo saaray bunkii ama qaxwadii wixii aan ka diyaarin lahaa sidaa wada arkaysaan waan soo dubayaa insha Allah dhowr darajaad oo kala duwan ayaa lagu dubtay qof walba siduu jecel yahay inuu u noqdo ani zaid madow ma uga dhigaa insha Allah waxaan ka dhiganayaa brown dark camal markii aan soo dubo oo aan soo dhameeyo dubista ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah qaabkaas ayuu diyaar ku yahay sidaa wada arkaysaan waan soo dubay baaquliga ayaan ku soo shubay maasha Allah haddana waxaan bilaabayaa inaan soo shiido aniga guriga ayaan ku diyaarsadaa guriga waa ku diyaarsan kartaan haddii aad rabtid suuq waa ka soo shiidan kartaa wax dhib ah ma lahan markii aan soo shiido ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah qaabkaas ayaan u soo shiiday sidaa wada arkaysaan kalarkaas inuu ii noqdo ayaana rabay intaas ka sii madow ma rabin maasha Allah haddana waxaan bilaabayaa inaan soo kariyo dabka waxaa ii saaran biyihii aan kusoo karin lahaa biyaha qiyaastii waa 1 litir waxaan kusoo darayaa insha Allah 3 qaando oo qaandada cuntada ah haddii aad rabtid full zaid waa ka badsan kartaa haddii aad rabtid khafiif waad ka yareyn kartaa laakiin aniga 3daas qaando qiyaastaas ayaan ugu talagalay inaan kusoo diyaariyo maasha Allah halkan waxaa ku haystaa caano boodhar ama caanaha gasaca ama daasada oo aan soo qasaa insha Allah marka aan soo qaso waxaan ku soo darayaa insha Allah qaxwadii ama kafeega dabka inoo saarnaa haddii aad rabtid waa ka deyn kartaa wax dhib ma lahan qaabkaas ayaan ku soo wadaa insha Allah markii aan soo diyaariyo oo bakeeriyaasha aan ku soo diyaariyo ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah saxaabay qaabkaas ayay diyaar ku tahay maasha Allah qaxwadeena ama kafeegeeni maanta sokorta intaa jeceshahay macaanka ayaa ku darsan kartaa wax dhib ma lahan haddii aad rabtid waa iska deyn kartaa qaandada isticmaalay aad ayay u yartahay maasha Allah 4 ayaan ka isticmaalsaa wada arkaysaan laakiin waa qaando aad u yar 4 waxay u dhigantaa 2 qaando oo kale maasha Allah qaabkaas ayaan ku soo wadaa insha Allah inkastoo qaxwada ama kafeega uu leeyahay faa'iidooyin badan wax kasta oo faa'iido leh dhibna way leeyihiin laakiin faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah xanuunka macaanka ayuu hoos u dhigaa wuxuuna siiyaa qofka awoodda waxqabad haddii uu saacad iyo bar ka hor uu isticmaalo ama uu cabo wuxuu kaloo hoos u dhigaa xanuunka kansarka qofkii si joogta haddii uu isticmaalo 50% ayay sheegaan dadka cilmi baarayaasha xagga caafimaadka inuu hoos dhigo ama uu ka hortago maasha Allah waxyaabo kale oo aan halkan ku soo koobi karin faa'iidooyinkiisa aad ay u badan yihiin dhinaca kale wuxuu kaloo u daran yahay dadka qaba wadna xanuunka haddii aad wadna xanuun qabtid iska daa ama ka fogow cabista kafeega ama qaxwada wuxuu kaloo aad ugu fiican yahay maqaarka intaas ayuu ku eegaya muuqaalkeeni maanta haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo please subscribe haddii aad horey inoola joogto oo ka heshay muuqaalkana like asxaabtaada iyo eheladaadana u sii share garee waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan jazaakumullahu khayra wixii fikradaana xagga commentiga igu soo qora salaamullaahi calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.